بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قرآنك أهل كيسة يضع أصل أيوتها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويري إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. النبي وحي صلى الله عليه وسلم إلهي wuxuu leeyahay dad ehel u ah asoo khaas u ah. waxaa la weydiiyey yaa weeye rasuulka ilaahayow, nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ahlu qur'aanka weeye, waa ehelka alle ee khaaska asaga u ah. marka fadliga dadka ahlu qur'aanka ah ayaa kelimadan ay ku saabsan tahay biidn illahi tacaala. waxaa ka mid a qur'aanka qiimihiisa iyo sharaftiisa. waxaa qur'aanka waa kalaamka ilaahay, maadaama uu kalaamkii ilaahay yahay, hadalkii ilaahay yahay, wuxuu noqday hadal la akhriya hadalka ugu qiimaha badan. waxaa soo dejiyey jibriil calayhi salaam, nazala bihi ruuxu lamiin, markaasuu wuxuu noqday ambiyada malaa'igta ilaahay malaga ugu fadliga badan, ugu qiimaha badan, oo lagu magacaabay ruuxu lamiin. waxaa lagu soo dejiyey nabi maxamed sal allahu alay wasalam, markaasuu wuxuu noqday ambiyada midkii ugu fadliga badnaa, ugu qiimaha badnaa. waxaa qur'aanka lagu soo dejiyey ama lagu xifdiyey qofka mu'minka qalbigiisa, markaasuu wuxuu noqday qalbi midka ugu qiimaha badan. qofka ahlu qur'aanka ana wuxuu noqday qofka dadka ugu sharafta iyo qiimaha badan, sidii nabigu yiri sala allahu alay wasalam khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama. waxaa nabiga ka sugan sala allahu alay wasalam axaadiid aada u badan oo ka hadlaysa fadliga qofka ahlu qur'aanka ah, oo nagu dhiirigelinaysa inaan qur'aanka baranno oo la noolaano oo aan tadabburo oo aan mar walba ku jira rixla maca alqur'aan, safar qur'aanka ah. marka waxaa la dhihi karaa qofka fadligan yeelanaya ee ahlu qur'aanka ah shardi keliya ma aha dadka xufaadda oo qur'aanka xifdisan keliya ma aha. sida xadiidka bukhaari iyo muslim uu sheegaya nabigu sal allahu alay wasalam alladii yaqra'u alqur'aana wa huwa maahirun bih, qofka qur'aanka akhriya isagoo ku xeel dheeroo maahir ah. maahirku waa qofka si fiican u yaqaana. maca alkiraami albarara, malaa'igta micigeedu ahaanaya. waaladii yaqra'u alqur'aana wa huwa calayhi shaaqun, midka qur'aanka akhrinaya oo qur'aanku dhibayana falahu ajraani, laba ajri buu leeyahay. xadiidkaas wuxuu caddaynayaa qofka ahlu qur'aanka ah keliya qofka xaafidkaa lagama wado, laakiin waxaa laga wadaa qofka qur'aanka la nool, ee qur'aanka jecel, ee qur'aanka akhriya, ee qur'aanka tadabbura, ee qur'aanka ku dhaqma, ee qur'aanku uu yahay qayb noloshiisa ka mid a, ee qur'aanka la saaxiiba. waxaana lagu gartaa baa layidhi dadkaas daa'iman safar buu qur'aanka ku jiraayo, markuu khatmo sii dhammaynayaba midda kaluu sii bilaabaa. inta uu ku dhex jirana wuxuu qur'aanka kala kulmaa cajaa'ib iyo macaan iyo dhiiragelin iyo shawq iyo jacayl oo ilaahay iyo jannada iyo kulanka ilaahay uu qabo. waxaa sugan nabiga sal allahu alay slam xadiidka imaam tirmidi uu wariyey, maalinta qiyaamada waxaa la keeni doonaa qofka ahlu qur'aanka ah. marka haddaad ahlu qur'aan tahay ama aad jeclaan lahayd inaad ahlu qur'aan noqoto, xadiidkan si fiican u dhegeyso. wuxuu nabigu yiri sal allahu alay wasalam dadka ahlu qur'aanka ah la keenayaa. marka qur'aankii baa wuxuu leeyahay rabbiyow qofkan wax hubi, wax u xir. dadku way qaawan yihiin, meel baa keligood wada taagan yihiin, qof kasta nabiyullaahi aadam ilaa dadka ugu dambeeya qiyaamada ku dhacdo. markaasaa taaj liya taajul karaama baa loo gelinayaa. markaasuu wuxuu leeyahay rabbi u ziyaadi, madaxii baa wax loogu daday, dadkii kalena waa qaawan yihiin, rabbi u ziyaadi. markaasaa waxaa loo xirayaa xulla ama isku joog ama labis la yidhaahdo xullatul karaama baa loo xirayaa. markaasuu wuxuu leeyahay rabbi ka raali noqo. markaasuu ilaahay ka raali noqonayaa. markaasaa waxaa lagu leeyahay iqra'
warqa qur-aanka akhri oo jannada kor mansilo kaste ama aayad kasta ood akhridid oo aayaadka qur-aanka ka mid a xasano iyo darajaad leedahay. aayadda halkii aayadba sida ku sugan xadiidka kale imaamu tirmidi halka aayad ma ahna waa halkii xaraf xataa wakii nabiga sal allah alay slam laa aqulu alif laa miim xarfun walakin alifun xarfun walaamun xarfun wa miimun xarfun. qofka marka halkii uu akhriyo oo xarafba wuxuu leeyahay hal darajo oo janna buu leeyahay. maxaad odanaysaa qofkii akhriya juscama ama suuratu tabaarag oo dhan ama suurad ka dheer tabaarag oo intaasoo xasano ama akhriyaba qur'aanka dhan ama 10 juz ama 30 juz kii dhan akhriyay inta darajo iyo ajir iyo fadli uu leeyahay. waxaa ka mid ah fadliga qur'aanka uu khaaska leeyahay. marka koobaad qofkii qur'aanka barta oo akhriya oo ku dhaqma adduunkan ilaahay baa sara u qaada wuxuuna noqdaa qofka dadka ugu sharafta badan. waana qofka keliya ee nabigu sallallahu alayhi wasallam uu yiri qalbigaagu hadduu qof xasdayo xasidnimadii xumayd lagama wada haddaad qof isleedahay alla asagoo kale maxaan u noqon waayey alla qofkaanoo kale maa noqdo waa qofka saaxiibulqur'aanka wa rajulun uutiya alqur'aan fahuwa yaquumu bihi aanaa alleyli wa aanaa annahaar. qof qur'aanka ilaahay siiyey oo ku istaagaya habeenkii iyo maalintiiba saacadahooda bu nabiga sal alla alay slam. marka adduunka ilahay baa sharaftaa ugu yeelay qof la tamaniyo oo dadka ugu sarreeya. markii adduunka wuxuu kaloo xadiidka nabigu sheegay sal alla alay slam in qofka ilaahay sara u qaadayo in allaha yarfacu bihada alqur'aani aqwaaman wayadacu bihi aakhariin. dad buu ilaahay qur'aankan kor ugu qaadaa darajo sare buu ilaahay ku gaarsiiyaa waana dadka ilaahay doortay oo xulka u ah. ثuma awrathna alkitaaba aladiina اstafayna min cibaadina waxaan kitaabka dhaxal siinay oon siinay kuwii ummadeyda ka mid ahaa addoommadayda aan doortay ee xulka ah waana kuwa lagu magacaabay ahalka ilaahay asaga khaaska u ah. waxaan rabaa inaan kusoo khatima kelimadan ka hadlaysa fadliga dadka ahlu qur'aanka ah. qiso yar oo sheekh qaari ah oo ka mid ahaa culimada quraada kuwait ah ay wiilashiisu ka wariyeen. ninkan wuxuu ahaa nin ahlu qur'aan ah oo qur'aanka aad u akhriya oo qur'aanka aad u jecel oo ku ooya laakiin indhool ah. marka wiilkiisa wuxuu ka sheekeynaya wuxuu leeyahay markii aan janaasadiisii aan uu dhimashadiisii soo dhowaatay oo xanuunsaday ayuu habeenada ka mida wuxuu yidhi isbitaalka hala geeyo isagoo aad u liita. markaan soo qaaday buu yidhi waa indhool wax ma arko. wuxuu yidhi wiya aabow waxaa dhici karta in aanan soo noqonin maqribkii iyo cishihiina waan soo jamciyey maqribkii baa la tukaday cishihiina waan ku daray waxaa dhici karta inaana soo noqonin. wuu ii dardaarmay buu yidhi. markuu ii dardaarmay buu yidhi oon jidka sii socon baabuurka ku wadaa ayaa waxaan arkay buu yidhi qur'aan buu bilaabay inuu akhriyo. waa wixii uu akhrin jiray ogow saaxiibu qur'aan buu ahaa. qur'aanka markuu akhriyey ayuu waxaan arkay isagoo meelaha fiirinaya geesaha. markaasaan iri aaba maxaad fiirinaysaa? markaasuu waxaan u jeedaa wax aan dadna ahayn jinnina aan ahayn oo qurqurux badan baan u jeedaa khalqi ilaahay ka mid ah. oo aabo waxba ma aragtay indhool baa tahay mee waan u jeedaa. markaas wuxuu bilaabay inuu dhaho marxaban soo dhowaada soo dhowaada soo dhowaada suu dhahayay baa isbitaalkii ku geynay buu. isagoo wuxuu qoslay inta qur'aankii buu akhrinayaa. isbitaalkii baa la seexiyey wuxuu ilaa ay naftu ka baxday qur'aankii buu akhrinayay. markay naftu ka baxdayna markaan qabriga gallay buu yidhi oo aan dabcan inaan dhigno qabriga caraftii ka soo baxday buu yidhi dadkii taabtay oo dhan gacmahooda way ka carfaysay ilaa aan meesha kasoo tagno. waa fadliga dadka ahlu qur'aanka. adduunkana ilaahay baa sharaf u yeelay qabrigana ilaahay baa sharaf u yeelay. qur'aankuna wehel buu u noqdaa. markay salaadu dhinac fadhiisato qur'aankuna dhinac fadhiisto wuxuu leeyahay qur'aanku dhinacayga la iigama imaanayo. maalinta qiyaamada ana sharaf baa ilaahay u yeelay. qur'aankii oo daruuro aad u malaysid oo suuratu baqara iyo aali cimraan ay horkacayaan oo qofkii akhrin jiray ay u doodayaan ayuu imaanayaa. nabiguna wuxuu sal allah alay wasalam way u shafeeca qaadayaan ilaa uu jannada ka galo. jannada darajooyinkeedana lagu xisaabiyo mar walba aayadaha uu akhrinayo xuruufta uu akhrinayo. marka akhil muslim iyo ukhti muslima qur'aanka ha ka qadin ha ka maqnaan saaxiibo qur'aan noqo. haddaad rabtid inaad adduunkana sharaf ku yeelatid aakhirana sharaf ku yeelatid biqadarka aad kitaabka ilaahay ka qaadatid bay sharaftaadu la ekaanaysaa. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.